munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo urur siyaasadeedka Waaberi ayaa lagu qabtay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaaga waxaana ka soo qayb galay urur siyaasadeedka nabadda iyo midnimada Somaliland ee Waaberi dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ay si weyn u taageereen ururkaasi Waaberi waxaynu qaadanaynaa calaamadda mideynta dadkeena reer Sanaag waxaan u haystaa anigu Somaliland markaynu nahay bari iyo galbeed baynu nahay reer galbeedku waa midaysan yahay bariga se waxaad moodaa inaanay midaysnayn tirada iyo tayadaba ay xageena ay jirtaa ma garanayo waxayna helay ee ina kala kaxeeyay ee inba meel ku qoqobay haddii ururadii hore socon waayeen hadday noqdeen wax iska hor yimi waa inaynu samaynaa urur socda oo aan xamaasad la iskaga hor iman iyo qabyaalad waxaan leenahay ururkan hadba sida loo hanaaniyo innaka ayay ku xidhan tahay ninka maanta gudoomiyaha kaana si fiican buu soo dhigay wali maanta ka hor uma arag xaflad xisbiyadii dalka iyo dadkii reer Sanaag sidan u midaysay waa kow waxaynu ku kulannay waa ururka Waaberi marka waxa weeyaan in badan ba gobolada tani ay sheelaayeen maanta hadii ay soo saareen oo ay sheegeen aad baan u soo dhawaynaynaa reerayayna waxaan leeyahay كل أبالك وانو يدون كلنا هاي وحوي أنور كان رأس عصارة دحين صعب كيدين قرعنا أورور كان Waaberi وأورور ليسوا يميكا وأن دون إنه Somaliland وحكي بدلو siyaasadeed ka nabadda iyo midnimada Waaberi Somaliland aad iyo aad baan ururka u soo dhawaynaynaa waa urur reer bari waxaan jecelahay inuu rajaynaynaa uu noqdo xisbiyada soo saddexda waxaan leenahay mudane xisbigaas waanu taageeraynaa wuuna soconayaa waxaan rajaynayaa inuu noqdo ururka la yiraahdo Waaberi nabadda iyo horumarka nabadda iyo midnimada ayuu ku wajahan yahay labadaba inagoo u baahannahay marka xisbiga aad baan u soo dhaweynaa runtii gudoomiyaha xisbiga oo Cabdirasaaq Ibrahim Cataashna nin la yaqaan oo aad u wanaagsan weeye waxaan u hambalyeynay ururka cusub waxa annagana noo sharafa midnimada noo ah xisbi harti leeyahay oo reer Somaliland leeyahay ku sumtan magaca Somaliland oo hormuuda waxaan u malaynayaa inaga xisbiyada dalka Somaliland la yiraahdo waxba kuma lihin inay inaga dhamaatay qolada beesha dhaxana annaga xusbiyada leh iyo calaaniyadii waa ka dhamaatay Somaliland gobol Sanaag bay ka alkumantay oo ay ka sii bilaabantay ururkan hadduu maanta ka sii aasaasmay gobolka Sanaag insha Allah ta'ala waxa weeye waa urur soo bixi doona weeyaan ururkaas Somaliland baa u baahan midnimada Somaliland baa u baahan wadajirka Somaliland baa u baahan اعترافka Somaliland baa u baahan ururka hadii la helo intaaba waa la helayaa aan nabad iyo caana ugu soo jeesano xusbigana waa ogolahay waa ku faraxnay waana dhab Waaberi aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhawaynaynaa waxaan rajaynayaa ururkan inuu noqon doono ururka dhalinyarada dhammaan reer Sanaag aanay u kala hadhin maxay tooleen wada taageerno Waaberi magac wanaagsan laba magac oo wanaagsan baa ka muuqda magaca oo Waaberiya nabadgelyo iyo midayn jeenayaa sidii uu waxa weeyaan u noqon lahaa xisbi oga dhigi lahayn inaynu gacmaha isu qabsan doonno haddaynu nahay gobolada bari kan wuu ka duwan yahay taariikhdana way noo gelayaa meelna in lagu qorto ayaa kulligeen bay nagu waajiba wuxuu kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay ninkii wax dooranayay kooxdii wax dooranaysay beeshii wax dooranaysay kaankii wax dooranaysay oo 30 sanadood hanaysay in la hogaamiyo Somaliland oo dhan inay ku midoobaan mid reer leeyahay oo qoys leeyahay maaha waxa weeye waa xisbi la wada lahaan doona hadii Allah markaynu soo saaro Cabdirasaaq Sugulle MMTV Ceerigaabo